hortaan idin warramo subscribe baad odhanaysaan channelkan horta Xuseen baa la dhaka weynaa la Xuseen dhaka weyne markii saddex fariyarada uu diiday adiga maxaa ka galay subscribe ku dhadii soo gar ila liqa الكلمان يورم بريغا waxaa la yiri baarlamaanka labadi aqalba waa fadhiista wax buuq iyo sawaxan oo ka jirana ma jiraan ma la heshiiyay wargalaha shacabka wariyaasha aan gashnay fanaanadaha xarumahooda warbaahin laabta ay yiraahdeen maanta horta aqalkii sare iyo aqalkii hoose ay isku yimaadeen aqalkii dhexe xaguwaade ariya kaas waaga mihidhaxa kama iimaanay u kaadi war kalamaan diin leeya safarkii nootabi reer seeday nabadiis war waa tinacsan tahay safarka xildhibaanada markii kala fadhiga u xirmo war baarlamaanka aqalka hoose guddigii doorashooyinku maanta warbixin ka dhageysanaya leeyahay aqalka sarana guddigii dastuurka ayuu asna warbixin ka dhageysanaya leeyahay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee aqalka sarana wuxuu yiri dawladdu waa inay dardar gelisaa wada hadallada Soomaaliland si ay dastuurka dhamaystirkiisa qayb uga noqdaan shacabka reer Soomaaliland war marka dastuur la soo hadal qaado ayuunba ku soo xabaalato Soomaaliland tarbaanne maxaa kala naga dhaxeeya aqalka sare Soomaaliland tabashooyinka hore intaysan u gudbin ayaka iyo aqalka hoose tii u dhaxaysa ma la xaliyay war langa kanooga ama geeljir hoose lindhiga waa la taasiyade hoose lindhigi warnimayo waxa la yiri dalkanagu markii uu burburay la kala yaacay qabiilada dadkeenu isku dilay waana la ogaayay ayagoon heshiin baa hadana la isku soo daray baarlamaan miyay noqonayaan wayla ama kaag war cidna laguma dilin qarax maanta muqdisho ka dhacay war qaraxu wadada shaqaaluhu ka dhacay baabuur qarax lagu soo xiray buuna aha laba baabuur oo kalaana ku gubatay dabna kuma dhiman war ma qaraxu baaniyo ku jiraysan ila haawi ila aadan nima yaabaan qarax dhaco ummadana dhibaato loogu geesto maalin kastana ay dhacayso dhibaato weyn aan shacabku ugu jirtay qarax ya qayladaan miya nalo ku qoray qarniga qarax ya qayladaan miya nalo ku qoray qarniga haye warwar ma haysan nin hubeysan ayaa wuxuu weeraray saldhiga booliska degmada warta nabadda bamba gacmeed ayuu ku tuuray kadib ciidanka booliska ayaa ceersaday wuxuuna ka galay guri dad shacab oo leeyahay halkaas ayuu muddo ka dagaalamay wuxuuna ku dhaawacay ilaa 5 askari kadibna asigoo dhaawac ayaa la soo qabtay booliska ayaana la wareegay warwar ma haysan ninka bombada tuur guriga u galay oo dadka shacabka ay deganaayeen dhamaantiisu burburaa la yiri warnamiya gurigaas la baabiyay lanka masaakiinta ee la haay dhismadii shabaab la kaleeya mas'uuliyadda la kaleeya ariyaan lama maroodi mahay ku dirirta cawsa ku gacan galaya la yiri iska aamus nimayo arintaas waxayna tusaysaa ciidamada dawladda hadii loo tababaro hal askari oo kamid inuu soo baabiin karo cadawga warnamada siyaasiga Salaad Cali Jeelle ayaa shir jaraa'id qabtay wuxuu yiri banaanbax dawladda looga soo horjeedo ayaa la diyaarinayaa rag mucaarad ahna ka dambeeyuu yiri oo Umar Cabdirashiid ka magacaabay oo uu sheegay inay cimaaraadka lacag ka soo qaateen war waxba kama ogada wuxuu kala yiri haram cadku intuu baahan yahay waahin raaga mana aamuso ilaa uu wax cuno mucaaradkuna waa nuucaas warnamiyo maysiin warsaday mucaaradka bariyaagu ma hadalaana shibaan yaaleen wala hadalay dawladda leeyahay marka Salaad Cali Jeelle war ku usheegi hilimilahan ka sheegay ariyaadaha war ma haysiin kamada gobolka maanta waxa la hor keenay la yiri todoba qofood oo ku eedeysan dilkii iyo gubistii Axmed Dawlo hadda wixii laga shibanay alla soo shaaci rabaa runku suga war ma haysaan Aisha Ilyas gabadhii hadda ka hor gaalkacyo lagu dilay laguna kufsaday hooyadeed baa xal hadashay cadaalad darayna ka sheegatay maxkamadaha Puntland waxayna tiri ninkii booliska ay markii ugu horeysay gurigeyga yimid ilaa hadda baaritaan ay ugu imaanaya war madaxweynaha hore Suudaan Umar Xasan al-Bashir waa tileeyay xabsi guriga ku jira hadda waxa la leeyahay xabsi rasmi ah loo gudbiyay war madaxweyne al-Bashir habadi rootiga hayta intaas dhibaan jeysatay nimayo saas waxaad ku ogaanaysaan rootiga Suudaan inuu dadka Soomaalida oo maalin kasta la leynayo ka qaalisan yahay saaxiibayaal waad ka dhacsantihiin xalay ciyaarihii ugu la Champions League baa dhacay
برشلونة مانشستر بيكات كاتي مانشستر ما قمرة هي التي برصدي وما حد يجي ودي مكشيجيسا وركوحدا عاجا كسنا جوفنتوس ay cirka u dirtay waxa ka siya badnaa markii asarkayaato ciyaarta fiirsanaysa qorihii laga qaatay aryaadaha askarta Kenya intay dagaal ku jiraan yara iyo koob banooni fiirtahay hadii qorihii laga qaadahayo saasay rabaan inay badeena ku xogaana ka waranhe war ma beer baa la fayeesha warnimada war ma haysiini dhirta duurka waa kala dhaqan geedka dhuuxa leh kani muday dhigtaar iyo ma aha qaydarkii dhagax waa dhirindir dhilquhu saansadiyo ceedin dhaashaday ma intaasaad ku soo koobaysaayaadan si badan war aniga hay dhaashina dhulkiina iyo dadkiina u shaqeeya war ya dhiraandiru bilaash inguraas ma taasay ka jidgaati lafado hay bahluntan aryaa dhirindiri wala buusti ka maahin war ordaniyo meesha lagu kala kaxay waxba kuma haystaan ما كالد من فرنسا ما كالد من فرنسا ماذا تبع الله يدر أسطوره